xafladan oo ahayd mid lagu taageerayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabit Cabdi Maxamed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska. munaasabadda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka magaalada Birmingham, isla markaana waxa ay halkaas ugu soo jeediyeen ducooyin iyo talooyin oo ay ugu tala galeen gudoomiyaha. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaadudiin, haween iyo dhalinyaro ku dhaqan magaalada Birmingham, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. labadaba waa soo dhaweynaynaa. waxaan hadda ku soo dhaweynayaa quraankii kariimka ahaa oo uu noo akhriyo Cabdullaahi Yuusuf. Cabdullaahi Yuusuf halkaanibow soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. xafladda halkii bay nooga sii soconaysaa, dad baa gadaal nooga soo biiray. waxaan rabnaa inaan u sheegno xafladda halkan caawa ka socota micnaheeda iyo ujeedadeedu waxaa weeye waa soo dhaweyntii iyo ducayntii gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Taabit Maxamed Cabdi iyo sii sagootintii duqii magaalada hore runtii oo hawl badan qabtay Yuusuf Madaale. hadda waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka gudoomiyaha guddiga qabanqaabada oo runtii hawshaan soo qabanqaabiyey, warbixinna naga siiya waxyaalaha la soo qabtay, runtii dadkana ku soo dhaweeya xafladda. xasan iligey. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. odayaasha dhaqanka, culimada diinka, siyaasiyiinta, dhalinyarada, haweenka, jaaliyadda sharafta leh ee xafladdan nagala soo qayb galay waa idin mahad celinaynaa. anuu ku hadlayo magaca guddiga qabanqaabada ee xafladdan soo agaasimay. waxaan idin leenahay soo dhowaada magaalada Birmingham ku soo dhowaada. intaa kadib xafladdan waxay ku saabsan tahay taageeridda gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed iyo sii sagootinta gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale. waxaan annagu marka horeba aan magaalo ahaan ka soo jeednaa bulsho isku duuban oo magaalo ahaan dadkeeda, culimaadudiinkeeda, odayaasheeda dhaqanka, dhalinyaradeeda, haweenkeeda ay mid yihiin. madaxda halkan timaadana si wadajir ah ayaan usoo dhaweynaa magaaladan. marka mar hore iyo mar labaad iyo mar saddexaad intaba waxaan idin leenahay anuu ku hadlayo magaca guddiga qabanqaabada ku soo dhowaada magaaladeenna Birmingham. dadka martida inoo ah, dadka Birmingham deganna waxaan leenahay waan mahadsantihiin sida qiimaha iyo qadarinta badan ee aan nagala soo qayb gasheen. wassalaamu calaykum waraxmatullahi. qaarey oo aad iyo aad dadkan isaguna ka mid ah siyaasiyiinta. abukaata qaarey caawa waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Xamar. magaalada Xamar taabadow qoridhiib bay ku jirtaa, rag baa kaaga soo horeeyey, ninba meel buu marsiinayey. intay kugu gaartaba taariikhda ayaa ku xusi doonta. waxaan rajaynaynaa marka hore horta waanu kuu ducaynaynaa in ilaahay kula garab galo, kuu fududeeyo, kuu sahlo. adigana ilaahay waxaan kaaga baryaynaa adiga shacbigaaga reer Muqdisho inaad isfahamtaan, nabadda aad meel uga soo wada jeesataan, nabadgelyada inaad meel uga soo wada jeesataan,
adiga iyo shacbigaaga iyo xukuumaddaaduna adinkoo ishaysta in ilaahay idiin wada fududeeyo ayaantan dhallinyaraa socota dhallinyaradiinana waxaan rajaynaynaa inaad wax ka gadisan odayaashayadii hore aada la timaadaan oo la yidhaahdo wallaahi waryaada dhallinyartii odayaashii way ka fiicnaayeen xoogaa yar baan idinku riixi doonaa khibrad ah laakiin waad la qabsan doontaan sidaan rajaynayo taabadow magaalada xamar cabasho badan baa ka jirta taabadow magaalada xamar waa gunuunacaysa taabadow magaalada xamar dad baa weli cabsi ay ka jirta taabadow waxaan kaa codsanaynaa nin dhallinyara baa tahay nin aada u maskax furan baa tahay waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa in uu kugu guuleeyo uusan kugu ceebaynin maantay sida raggii kaa horreeyey oo kaleeto inaad meel gaarsiisid ilaahayna kula garab galo ayaanu maanta kugu ducaynaynaa qofka marka koowaad haddee qofku markuu shaqo qabtaa la ammaanaa wixii aad qabatay haddaan isla nool nahay ayaan dib ka soo sheegi doonaa caawa waa hambalyo iyo soo dhoweyn iyo duco intaasaan ku soo koobayaa wabilaahi towfiiq dhaweynayaa oon halkaan ugu yeerayaa cawil shire cabdi oo aan leeyahay cawil soo dhowow rugcadaa runtii bacda salaan waxaan u mahadnaqayaa guddiga soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan loogu talagalay caawa in lagu sagootiyo guddoomiyihii hore guddoomiyaha cusub oo taabit cabdi maxamedna in lala shaqaynayo lagu tuso waa la shaqaynaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaa dadka soomaalida o dhan inay la shaqeeyaan guddoomiyaha xamar waxay la mid tahay markaan idiin sheego xamar waxay la mid tahay war socod ma lay maqlaya xamar waxay la mid tahay maamul goboleedyada qolyaha joogay xamar horta la mid tahay xamar waa maamul goboleed xoog leh oo waliba ka xoog badan shanta maamul goboleed soomaaliya oo dhan baa joogta maamul goboleeda waxaa jooga qabiil baa jooga laakiin xamar soomaaliya oo dhan baa joogta xukuumaddii federaalkeed baa joogta waxay u baahan tahay booliis xoog leh oo isku dhafa oo soomaaliya u baahan tahay booliis qabiil xamar kama shaqayn karo waxaan guddoomiyaha ugu hambalyeynayaa inuu ra-iisul wasaaraha la tashado iyo madaxweynaha si booliis xogan oo amniga xamar la sugo xamar waxaa la rabaa inay caasimadii noqoto 8 gobol oo Soomaaliya isla markaana safaaradihii iyo waxa imaan doona dad xoog leh iyo hay'ado waxay u baahan tahay security xoog leh oo dhaba oo qof dibadda ka shaqeeyo oo Soomaaliya hadda guddoomiyaha Ingiriiskana Brussels buu joogi jiray Mareykanna hadda qunsul buu ka ahaa sidaan warka ku hayo annagoo dhan runtii hurdada naga kicin doonta wadaniya walaalayaal caawa xafladdan aan u taaganahay waa xaflad lagu taageerayo gobernatooraha gobolka Banaadir isla markaas duqa magaalada master taabit cabdi waxaan leenahay guddoomiye soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan gacmo furan sidaa darteedna waxaan ku leenahay xilka lagu dhiibay waa xil culus waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inuu ilaahay kula qaado shacabka Soomaaliyeed kula shaqeeyo midda xigto waxaan leeyahay jaaliyadda Barmahan waxa lagu yaqaanaa maamul kasta ee gobolka Banaadir ka dhasha waa UK markii la yiraahdo waa qolada ugu horeysa tihiin oo taageerto maamulkan maamuladii ka horeeyay dabdamisaad gadeen xoog iyo xoolad ku bixiseen waxaana hadda iniga rajaynayaa tiyo kalena la shaqeysaan guddoomiyaha walaal guddoomiyahan wuu hadlay wuu noo sheegay wuxuu yiri in layla shaqeeyaan rabaa hawsha aan qabalahay way meelba ii taala hawlgelinteeda ana iskale laakiin jaaliyadda Soomaaliyeed ama diaspora Soomaaliya UK waxaan ka codsanahay in layla shaqeeyo waa mudan yahay walaalayaal ma la shaqeynaa guddoomiyaha ma garab istaagnaa guddoomiyaha waa da'yar maskax furan ma garab istaagnaa guddoomiyaha guddoomiye taabid waa inaan garab istaagnaa mid dalad fursadaydu waxaan uga faa'iideysanayaa waa in la xuso oo hoosta laga xariiqo oo karaamadiisa cisidiisa la siiyo gobernatoorihii ka horeeyay mudan marka waxaa xasan coongaab soo dhawow xasan coongaab
walaalayaal waxaad ogtihiin ummaddan hadda maanta aan ma garanaysa adduunka ku nool inteeda badan waxa weeyaan markii horumarkii hadda ugu dambeeyey la gaaray waxay ka bilaabataa magaalooyinka waaweyn sida caasimadaha oo kale magaalada muqdisho waxa weeyaan waa magaalo madaxda dalka Soomaaliya waxaan dhihi karaa waa madaxii dalka Soomaaliya waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mamaahi jirtay mas madaxa ayaa laga dilaa magaalada muqdisho hadday dhimato Soomaali waa dhimata sida laaligeed waxaan aad iyo aad aan ugu hanweynahay gudoomiyahan hadda meesha loo magacaabay inuu ka bedeli doono magaalada muqdisho hankii ummadda Soomaaliyeed ay u qabtay inuu dib ugu soo celin doono waxyaabaha aan ka rabno gudoomiyaha magaalada muqdisho ama duqa magaalada muqdisho waxa ka mid ah in la soo celiyo hanaankii ay lahayd magaalada muqdisho oo ay ka mid tahay in ay tahay magaalo madax u dhaxaysa ummadda Soomaaliyeed qaylo badan baa yeeraysa waxa weeye cabasho badan baan mar walba ma garanaysaa media iyo meelo badan aan ka maqalnaa waxaan filaynaa inay maxaan ku raad 40 sano oo soo socoto inaan qaylo dambe aan maqli doonin oo leeyahay sida hadda igu maqaalaha kulli hadda way bilaabatay waxaan ogahay oo maxaan ku raada wiiga hadda la soo dhaafay la ii sheegayaa in badan oo dadka oo horjeelaan badan ay ku dhacday in hadda ma garanaysaa codsigoodii iyo warqadahoodii dib loo qabtay haddana maxaan ku rajadu ay meel fiican waxaan hadda u yeeriyaa Fawsiye Boolay oo iyadu qaybta gabdhaha ah oo runtii gabdhaha jaaliyadda ee wax badan magaalada Birmingham ugu yaala runtii oo hawlahan hadda shahaadooyinka lagu bixinayo qayb ka ah soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلين وايد سلامي انت حفلتان قيمها إيقايها لك سو قيب قشي حفلتان أنا قفر بنادر أنا هاي حفلتان ومد آد يقدر ما دام عوض اي تهي إن لو إن أنكو تاجرينو قدوميه إنه قبرنطورها قبل كبنادر waxaan ilaahay uga baryayaa gobolka banaadir ninkii gacanta ku qaban lahaa inay tahay ninkii xaq u doodi lahaa inay tahay inuu ninkii banaadir xaq ka duudsano ka daboolan u soo saar lahaa inuu ilaahay ka dhigo aan ilaahay uga baryayaa annagana waxaan ballan qaadaynaa reer Birmingham haddaan nahay siiba gabdhaha inaan garabkiisa taaganahay hiil iyo hooba wuxuu nooga baahan yahay waxaan kaloo asagana ilaahay ula garab galay gabdhaha Soomaaliyeed kamid oo gabdhaha u karti badana oo reer Banaadir oo Maluuka la dhaho inay garabkiisa taagan tahay gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ay tahay isaga iyadaba waxaan leeyahay labadoodaba hambalyo ilaahay waxaan uga baryaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo ka badanba kuwii gobolkooda meel ka soo saaro inuu ilaahay ka dhigo Cabdullaahi Nuur Xaashi salaanka bacdi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa mudane taabid waxaan leenahay mudane gudoomiye waxaan hubnaa in aad faraxday markii codsigaaga uu noqday kii la aqbalay in uu qabto xilkaas gudoomiyaha gobolka isla markaan ah duqa magaalada waxaan rabnaa inaan ku xusuusino in 3 milyan ee ku nool magaaladaasi ay iyaguna farxeen oo iyaguna ay yiraahdeen waxaad hesheen leader qabtay xilkaas kaas oo baahidiina dabooli doona haddana waxaan u yeerayaa Axmed Kayse oo haddaba calan sidaba isu bedelay oo dadkii wadaniyaasha aad bay u soo badanayaan yaan u yeerayaa soo dhawaad qabaa laakiin anu waxaan qabaa waa ka soo horjeedaa meel ka dhacmayna ku tahay Muqdisho in maamul goboleed lagu sheego sababtu waxa weeye waxa ilaahay ku siiyay wax ka qaalisan ma jiro Muqdisho caasimadii ummadda Soomaaliyeed weeye daliilna waxa uu qof kasta oo Soomaali oo maanta dhibaatada waddanka ka taagan Muqdisho u socdaa marka anu waan ka soo horjeedaa waana mana raacsan runtii waxaan ku talin lahaa gudoomiyaha aniga oo maartay ilaahay uga baryo inuu xilkiisa u fudeeyo iyo rag kale oo khiyaarta oo la shaqeynaya gudoomiyihii horena ilaahay aan uga mahad celinayno hawshii fiicneed uu qabtay inaan lagu mashquulin maamul goboleed xamar hal la siiyo iyo mataqaana waxa ka maqan maartay kuraas baa ka maqan Muqdisho caasimadii ummadda Soomaaliyeed weeye 3,000 qof baa degan maanta waxa xamar u soo socdo oo Muqdisho u soo socda
tobanka sannadood 20 sannadood soo socda 20 milyan oo qof oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira marka gudoomiyaha iyo rag kale la shaqeynaya dawladda Soomaaliyeed anigu waxaan kula talin lahaa u taala in laga fikiro mustaqbalka fog tareemadii iyo andargoromadii la raaci lahaa iyo basaskii iyo transportkii iyo telecommunicationkii muqdisho hergeli lahaa laakiin macna u sameyn mayso in la yiraahdo reer hebel baa maqan taas waxaan leeyahay muqdisho waa kooladii ummadda isku haysay waana sax muqdisho waa meesha targetka ah ee la rabo in la baabiyo hadday muqdisho baabaado Soomaaliya waa ku deys daliil waxa uu ah ilaahay uu naxariistay Cabdirashiid Cali Shirmaan markuu dhintay raggii kale oo meesha jooga Soomaaliya baa taladii waddanka la wareegay wax dhacay ma jirin laakiin dawladdii meesha jirtay madaxweyne Maxamed Siyaad ka madaxda markii meesha ka baxday waa ogeeyay wixii xamar ka dhacay inuu targetku iyadu ahaa in la burburiyo maantana meesha hadafka koowaad u socda taa weeye waxaana lagu badbaadin karaa qarannimo Soomaaliyeed waayo ninka raas Casbeer joogay iyo raas Gambooni muqdisho halkaas laga ilaalinay marka anigu ma qabo in muqdisho reer lagu sheego ilaahay baa ka kormariyay caasimadda ummadda Soomaaliyeed capital city of Somalia weeye taas waxaan leeyahay muqdisho maqaamkaas ay leedahay waa in laga hadhaa laga shaqeeyaa mustaqbalka 3 milyan waa dad yar laakiin 15 milyan ma rujinay 20 milyan waxaan inta ku waxaan hadda ku xijinayaa raaxo George oo ku xigsata Axmed raaxo soo god Soomaalidu waa hal qof waaye hal madax waaye waa hal far waaye mana noqonayaan inay federaal noqdaan indhaha la isku hayaa laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu maalmaha kamida ilaahay inuu xaqana waafajiyo dibadda waa ku siracsannahay ilmaheena waa la qaataa dhibaato badanaa jirto iga raali ahaado wili dad badan kama hor hadlin xoogaa gariir hadalkaygu ku jiro laakiin waxaan leeyahay gudoomiyaha soo dhawow Soomaalidana waxaan leeyahay kuwii israaca Allah ka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaah يا نين علوس قدومي كحجينك قورتيدا حاجي معو أو آد لوجي غان وحركة المامو وحال يري نما هذا كور حنون صدي واجر هذا نما حنون صدي نك مركو حنون صدي وحوليه هاي شان لح ولا لا حوليه shantig iyo lixdii walaalihiisahay waxay rabaan ninkii xanuunsanaay meeshii xanuunaysay inay u sheegaan qofka jiran meesha xanuunaysa asaga yaqaano ma beentaya maamul goboleedyada kaleento waxay rabaan gobolka Banaadir meesha xanuunaysa inay u sheegaan war adiga ku sheegay meeshii xanuunaysa ana jiran meeshii xanuunaysa ana og i weydii intee ku xanuunaysiin laakiin hadda inta ma itiraado adiga meelay bala ku xanuunayso timir lafa ku jirto timir lafa ku jirto waxaan rabaa gobolka Banaadir markasta oo qof uu hadlo gobolka Banaadir ka soo jeedo Soomaalida kala kurbaa ku dhalato waxay leeyihiin maxaa qabiil looga dhigaa war Soomaalida dhan aad degan gobolka Banaadir macnaha ma ahan qofkan hadduu xuquuqda gobolka Banaadir raadiyo inuu Soomaali u diidaa iska xijinayo ma aha macna waxaan rabaa in loo fahmo macnaha qofka gobolka Banaadir uu hadlaayo qoftuu doona ha ahaado Soomaali ku abtirsanayo wuxuu raadinayaa xuquuqda 3 milyan ee gobolka Banaadir ku nool haddii aad tiraahdo gobolka Banaadir marka uu hadasho qabiilaa tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay meeshu ku xanuunaysa naqaan war meesha xanuunaysa dib taqaanid ana og meesha xanuunaysa ana og waxa la rabaa markii Soomaali waa walaalo waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan waa wiil iyo waalid waa seedi abti Soomaali kulligeed 40 haday isgaarto soo dhacaysa ilaahay ha laga cabsado xuquuqda gobolka Banaadir yaan la dafirin annaga haddaan nahay dadka Banaadir ku nool xuquuqda Soomaaliyeed ma dafirayno laakiin waxaanan ogolaanaynin in xuquuqdeen la dafirayno ka yeelmayno qofna ka yeelmayno dagaal ku raadimayno laakiin waxaan ku raadinaynaa af iyo oraal dheer qayl dheer ku raadinaynaa marka waxaan walaalayaal idin sheegayaa
anigoo maaragtay aanaan xumaan iyo wax kale iga ahaynin dadka gobolka banaadir degan xaquuq badanaa ka maqan wixii shicib laga raba kuma baaqdaan hadday ahaa lahayd cashuur la bixiyo hadday ahaa lahayd in la martigeliyo ummadda soomaaliyeed iyo dowladda wax ku baaqda ma laha laakiin ayaga waxay u baahan yihiin inay dhaafsadaan taas abni caafimaad iyo waxbarasho sida ay walaalaha kale u haystaan tad ma beentaya waa haystaan waxaa la rabaa marka ilaahay iibaankaa nagu sugo dowladda inay halala nin qaali ku ah Birmingham waa Cismaan Xaaji soo dhawow sida uu horay maaragtay dadkii iga horreeyey akhyaartii iga horreysay ay u sheegeen muxuu ahay gobolka banaadir waa horta waa caasimaddii oo waddanka waaye waa madaxii ama wadnihii oo muxuu ahay waddanka waaye iyadeena wax kasta ay muxuu ahaa haddii wanaag uu yimaadana ayaday wanaagga ay ka bilaabanaysaa haddii dhibaato ay timaadana ay burbur uu yimaadana magaalada haddii muqdisho ay burburtana inta kalena way burburaysaa sida aan hore usoo aragnay hadda waxa waaye waa taariikh oo na soo martay oo aan ogaa karno meelaha ay wax ka burburi karaan waxaan leeyahay guddoomiyaha gobolka waxaan leeyahay kii kaa horreeyey waxau qabtana ha tirtirna raac inta Soomaaliyeed ay leedahay waxaa ka mid ah nin hadduu jaga booska ka beddesho ama lagu beddelo xataa kursigu beddela waxaan kaa rajaynayaa kursi beddela aqoonta lagugu sheego waa inaad lahaataa waa inaad kursiga meeshu u jeedaa walaalkaa shalay tallaabadu qaado macayd oo ah $1 waddankaada ku dhisan waa inaad ku adkaysaa ummadda Soomaaliyeed ee xamar ku nool iyo dalka Soomaaliya dibaddiisa joogto waa inaad faras magaalada xamar aad dhistaa curuubaa dunsan markaasaa curuba waxay dadka u tahay xalane sharaf maaha gabdhuhuna waa ku xigaan Ismaaciil adduunku magac dheer waxaan rabaa isagana inuu sii wado marka aan dhiirigelino ma rabno inaan ka hadalno madaxweynaha shaqadiisa ma rabno inaan ka hadalno ra'iisul wasaaraha shaqadiisa waxaan rabnaa inaan uga hadalno guddoomiyaha gobolka banaadir wixii dhiirigelina aan siino oo wiil dhalinyara annagana waa la shaqeynaa horena kuwii hore waa la shaqeynaa hadda waan la shaqeynaa marka aan dhiirigelino wixii ka maama kutubey oo runtii caawa wax badan halkaan fadhiday murtideeda iyo hadalkeedaan ku soo dhawaynayaa maama soo dhawow waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka mahad celinayaa casuumadda sharafta leh oo aan uga mahad celinayaa jaaliyadda Birmingham ee walaalaheen ay nagu casuumeen xafladan quruxda badan gogoshan quruxda badanna dhigay waxaan idin leeyahay mahad oo idinka gaarto aad baad u mahadsantihiin waa runtii waa soo gaabsanayaa maxaa yeelay waxa fadhiya barofesoro looyaro aqoon-yahano akhyaar madax dhammaanteeda fadhida ma ahayn in aniga maaragtay safka hore aad iga dhigtiin maamaan ahay inaan maaragtay gadaal ka duceeyay ahayd laakiin maadaama laygu sharfay aad baan uga mahad celinayaa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay taabid cabdi maxamed waa ku taageersanahay waa ku soo dhawayhaynaa walaalkeenna yuusuf xuseen jimcaalena horaan u soo dhawaynay haddana shaqadou qabtay way muuqataa ilaahay waxaan uga rajayahaa khayr iyo ajir badan maadaama ummadda ugu shaqeeyey waxaan kaa rajaynaynaa adigana taabidow eedamacaan waxaan kuu rajaynaa cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaadadsan waxaan kuu rajayhayaa shaqadoo ilaahay kuu fududeeyo ilaahayna ha kugu asturo ilaahay ha kugu xafdiyo ilaahay ha kuu fududeeyo intaasi waa marka waxaan ku soo dhawaynayaa cabdinuur soo dhawow ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي مرة بينا كل هذا الك أنيك كهل معي سياسة دير سبب أغاني وحاسين ربع إن كهله إن نوم هذا عليو ذاتك السوق قبل غبية حفلة دان قروح البدن وحنا الله مرة بعض آدي هذا ما سنتين أنت اسكت وحنا قد بيا وحنا هم بلينا يا مدن تابد عبد محمد oon runtii aqoon dheer u leeyahay
aqoon dheer aanu leeyahay waxaan ogahay inuu yahay nin aad u firfircoon aqoon-yahanna ah waxaanu rajahaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyo xilka culus oo qabtay oo loo dhiibay ee lagu aaminay waa xil qaran ma sahlana hadalkayga halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa inaan kusii dheeraad ma rabo dhammaantiinna saad ugu soo qayb gashin waa ku mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa umahadsan tahay professor romi kusoo dhawow kadib waxaan soo dhaweynaynaa aan codkayga ku biirinayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo aan wada shaqaynay in muddo ah intaas kadib caawa aniga ahamiyad gaar ayuu kulankani leeyahay maxaa dhacay waxaan ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay ka shaqeeyey magaalada muqdisho waxaan nasiib u helay inaan jaamacaddii muqdisho ka baxo inaan macallin ka noqdo inaan wariyaasha raadi muqdisho barnaamijka bandhiga reediyoga aan noqdo waxaan kaloo nasiib u yeeshay inaan noqdo guddiga akademiyada qaranka ee Soomaaliya haddaba intaas markaan fiiriyo magaalada muqdisho wadnahayga waay aad ayay ii dhibaysaa waxyaalaha ka dhacayo aad ayuu ii dhibayaa waxaana caawa codkayga ku biirinayaa in dadka magaalada muqdisho ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah marka magaalada waxa waaye oo sifo ku yeelatay waa magaalo Soomaaliyeed magaalo Soomaalinimo ayay sifo ku yeelatay arrinta labaad ay yeelatay magaaladaas waxa waaye soo dhaweyn qof kastoo muqdisho tago wuxuu dareemayaa inuuna ahayn strange inuuna ahayn qof shisheeye ayuu dareemayaa arrinta saddexaad oo ay hibo ku yeeshay magaalada muqdisho ku hesho waxa waaye deeq waxay noqotay goob dadka deeq lagu gaarsiiyo lagu soo dhaweeyo qaxootiga soo kacay waqtigii gabagabada laba qof baan noo hartay waxaan ku soo dhaweynayaa oon u yeerayaa oon sugaynay aadna aan uga mahad celinaynaa intuu noo dulqaatay guddoomiyaha jaaliyadda salaamullaahi soo dhawow guddoomiye ruumi aad baad ugu mahadsan tahay waa runtii waa wax jira gobolka banaadirna waqti baa haray waa la gaarayaa waanan helaynaa in gobolka banaadir uu noqdo caasimad sidai ahaan jirtay kusoo noqdo odayaashii horteen meesha ka hadlay guurtidana aad bay u mahadsan yihiin runtii walaalayaal annagu runtii haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan guddoomiyaha la shaqeyno waa guddoomiye cusub oo dhalinyaro ah habeen dhaweyto habeenka ka horreeyay saan jecel haddii aanan qaldanayn wuxuu warbixin naga siinaya muddo 40 daqiiqo ah live ayuu noola hadlayay anagoo joogna xamar munaasabad kaga qayb galayna lagu qabanayo munaasabadiisa xamar lagu qabtay live buu u hadlayo roobab dhacay daadad dhacay iyo dadkii dhibaatada ku dhacay guryaha ku dumeen iyo siday ugu gurmadeen ayuu ka hadlayay runtii number 4 ilaa Boondheer intuu dhaxaysa ayuu socday waad garanaysaan runtii magaalada xamar oo markaa 6 saac 7 saac habeenimo ay u tahay sida ay cabsideedu u leedahay sida hore loo sheegay oo amnigeedu u wanaagsaneen runtii wuxuu sheegay runtii mowqifkiisa ku aadan xagga maamulka iyo visionkiisa hogaaminimo ama guddoomiyenimo ama mataqaana duqnimo ee gobolka banaadir uu damacsan yahay siduu ugu horumarin lahaa xagga arrimaha bulshada iyo xagga amniga labadaba iyo maamulka labadaba marka waa isleenahay runtii bacdama nin dhalinyaro oo qurbo ku noolaa oo caalamka wax ka bartay uu yahay oo fikirkiisu uu yahay mid ka hadda runtii dhalinyarada aqoonta leh maanta Soomaalida ee qurbaha joogta ee hamiga u haysa mataqaana qarankoodii sidii ay Soomaalinimada iyo mataqaana horumarka dalka loo gaarsiin lahaa meel wanaagsan dadka fikirka ay visionkaasi aragtidaas maskaxdooda si ay u ballaaran tahay isagoo qayb ka ah waxaan aaminsanahay runtii inuu ku dabaqi doono waxa uu halkan ka bartay bacdama waliba ree mataqaana Bristol uu ahaa waxa uu halkan ka bartay ama aqoon ha noqoto ama way aragnimo ha noqotee inuu ku dabaqi doono magaalada Muqdisho waan aaminsanahay hadii Ilaahay idmo waa wada aaminsanahay dhammaanteen xaqiiqdii hadii Ilaahay idmo walaalayaal anigu waan leeyahay waxaan isleeyahay runtii ninkaas maanta wuxuu dalbaday arrin muhiim ah oo ah Soomaalinimo
wuxuu yidhi magaaladu waa burbursan tahay waa dhibaataysan tahay inkastoo runtii madaale sheekh yuusuf madaale oo runtii dadaal weyn sameeyey xaqiiqdii dadaal aad weyn u sameeyey runtii inta insaan uu wax qaban karo iyo gudoomiyihii kale oo kasii horreeyay mataqaanaa mongaab runtii isagana oo runtii meel adag weliba ka soo qabta xagga amniga markii meelo badan laga fiiriyo isu dhiib waa qori isu dhiib ninbaa hortay hadalka ragga hadlay waxay yidhaahdeen waa qori isu dhiib hawsh waa qori isu dhiibkaasoo runtii maanta meesha uu marinayo markaan fiirino waa nin aan isleenahay runtii wax weyn buu qaban doonaa wuxuu codsaday in laga kabo dhinaca arrimaha dabdamiska iyo caafimaadka ambulansyada laga kabo ayuu dalbaday dhinaca dhaqaaluhu dalbaday waxaa loo baahan yahay marka inaan qaab samaysano keli ma aha inaan munaasabadeena keli kusoo ekayno ficil baa loo baahan yahay abaaraha siday u dhaceen dhibaatooyin badan baa socda oo ururin ah haddana dhinaca kale gobolka inaan dhisno weyn wuxuu weliba codsaday dadka banaadir ka soo jeeda inay indho gaara u yeeshaan gobolka oo ay dhisaan runtii marka anigu runtii waxaan soo jeedin lahaa inaan arrinkaa u guntano reer birminghamna runtii guddi fiican bay leeyihiin odayaal oo runtii aqoon-yahano dhalinyaro dad isku duuban bay leeyihiin waxtar ah iyo haweenka runtii lafdhabarta u ah bulshada runtii oo la-aantooda waxaan la dhaqaajin karin xaqiiqatan waxaan dhihi lahaa marka haddii aan iskaashano ood iskaashataan ood nidaam samaystaan oo barnaamij aad dejisataan gobolkaasi contribution loo sameeyo oo wax go-an loo qorsheeyo in aad horumarin karno oo arrimaha caafimaadka waxbarashada weliba laga kabi karaan aad iyo aad u aaminsanahay marka arrinkaa in lagu dhiirado wey nin baa wuxuu soo jeediyey oo leeyahay war waxaa loo baahan qof kastoo Soomaali ah gobol kasta iyo degmo kasta meeshuu joogaba waxaa looga baahan yahay inuu bixiyo hal baan wiigi qof ay dhib ku tahay ma laha wiigi haddaad hal baan bixiso baan waa hal baan baad meel ku ridaysaa sanduuqa la sameynaya hadda Birmingham ma kala sanduuq ay samaysanaysaa odayaasha sanduuq bay sameynayaan hal baan baad maalinka waaga markuu bariyo soo kacdo hal baan meel isaga rid hal baan markaad meel ku riddo meequu noqonayaa bish meeqay noqonaysaa waa 30 baan markuu qof bixiyo isagoo ogeyna bixiyay 30 baan waa hada hal baan ogow ama dad 15 every 2 weeks bixiyo 15 baan ha bixiyo 14 baan ha bixiyo whatever hadduu hal baan bixiyo lacagtaas meesha noqonaysaa waa lacag aad u fara badan waa wax lagu kabi karo runtii gobolka Banaadir marka waxaan soo jeedin lahaa inaan hal baan bis u qorsheyno maalinkii gobolka Banaadir waa ku filaanaysaa hal baan bis wax kale ma rabno hal baan bis guddigaasi jaaliyadda Birmingham mas'uuliyiinteeda ha qorsheeyeen guddi dhaqaale ha u qabteen hal baan hala sameeyo oo rag iyo haween isku jiro isku dhafa halka baan meeltii waa cashaynayna maadaama aan cashaynaynana waa in macnaha aan hadalka qof iyo laba iska sii wadwado way fiican tahay sababtoo ah waqti baan weli haysanaa dhammaan dadkii halkan ka hadlay horta oo aad ugu dheeraaday gobolka Banaadir iyo meeqaankiisa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan inii sheegayaa dadka gobolka Banaadir dhammaantood inay yihiin dad aad u nasiib badan ummaddii Soomaaliyeed oo dhan madaxdoodii iyo magaaladii ay hoos imaanaysay oo madaxda u ahayd weeye gobolka Banaadir xaqiiq meeqaankeeda iyo madaxnimadeedu halkaasuu ka muuqdaa wax la qarin kara ma ahan wayna yeeranaysaa meeqaankeeda waxaa keliya u baahannahay inaan dadka gobolka Banaadir ku nool ay nabadda ka shaqeeyaan markaasay runtii quruxdeedii iyo wanaageedii iyo sharafteedii soo noqonaysaa aad baad u mahadsantihiin gudoomiyaha jaaliyadda oo aad u dadaalay oo dadkii hawshan soo qaban qaabiyeyna ka mid ahaa ayaad moodaa inuu ugu dambayn doono xafladan soo xiritaankeeda intaana ka bixin oo gudoomiyaha u yeerin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo anigu aan isleeyahay dee anoo xamar jooga xataa iyadoo dadaalaysa aan fiirsanayay qaali aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waa qof firfircoon qofka niyadiisa iyo wanaagiisa iyo sida uu u rabo in wax u hagaagaan ayaa loogu mahad celiyaa adiga gudoomiyaha aad baan kugu mahad celinayaa iyo meesha dheerad waxaan leenahay gudoomiye waad mahadsan tahay taariikhdaana sheegi doonta waxaad qabatay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wax walba mataqaanaa xaflad kasta oo dhiganayna ay si wadajir u qabsadaan runtii waxa waaye aad u mahadsantihiin xafladan aan ugu talagalnay in gudoomiyaha cusub mudane taabid aan kusoo dhaweyno kuna sii dhaweyno kusoo gootino mudane sheekh Yuusuf Madaale runtii wuxuu qabtay ma soo koobi karno magaalada xamar ayadoo 2 laami ka dhisan tahay oo 3 iyo 4 gaarsiiyay
aad ugu mahadsan yahay shaqo fiican buu qabtay waxaan rajaynaynaa mudane taabidna intaas iyo inuu halkaas ka sii wado oo magaalada baahideeda laami keliya maahan magaaladu runta haddii caawan waa laga hadlaya magaalada oo waxaa la dhahaya magaaladu baa lagu hayay magaaladu waa wax badan baa ka maqan magaalada wax halkaa lagu soo koobi karo ama tv inaana mataqaanaa waxba u dhegeysan doonin calaa kulli xaal waxaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad ay mataqaan u mahadsan yihiin guddigaan soo qabanqaabiyey aad bay u mahadsan yihiin dadkii ka soo qayb galay dowladda federaalkana waxaan leeyahay dadku qaylo waa dhaafeen sheekadu waxay gaaran tahay waad garan kartiin waa inay dadka loo daayaa dantooda ayaga inay ayagu isdoortaan ismaamulaan booliiska gobolka banaadir waxaan rabaa aan ka codsanaya madaxweyne farmaajo booliiska gobolka banaadir iyo nafsada gobolka banaadir iyo maxkamadda gobolka banaadir si degdega inuu ugu wareejiyo guddoomiyaha gobolka si guddoomiyaha gobolka ay uga amar qaataan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu saadiin aan baleenayaa waa maasantihiin kasoo qabankiina aadaan u faraxsanahay aad waa maasantihiin guddoomiyuhu si fiican buu u hadlay waxaan u malaynayaa waktigii waxaan joognaa gebagabada run ahaantii waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee barnaamijkan soo qabanqaabisay ka soo qaybgalayaashii isa soo xilqaamay xafladdan oo lagu maamuusayey soo dhoweynta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waxaan kaloo u mahad celinayaa waftidii london nagala soo qayb gashayna xafladdan waxaan kaloo u mahad celinayaa oon la ilaabi karin maxamuud cabdiraxmaan cilmi oo loo yaqaan muudey oo isagu kaalinta xafladdan xooggeeda lahaa iyo soo dhoweynteeda aad iyo aad baan muudey ugu mahad celinayaa muudey waxaan leeyahay soo dhowow xafladdiina intaasay noogu dhammaatay waa noo xihan tahay waxaan ilooba u mahad celinayaa saxaafadda iyo telefishinada dhammaantiin waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana noo xihan yahay shirku assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu agaaceliyo dhisiley waxay ka cabtay ceelwarshii kalagama waayo caad carfoon ciideedana caanagey munaasabadan oo ahayd mid lagu taageerayey islamarkaana ay ka soo qayb galeen bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan Birmingham ayaa waxa ay u dhacday si heer sare ah Yuusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Birmingham